xasuustaa waddankan markii la soo geliyey Soomaalidu markay qurbaha soo geleysay dhammaadkii sagaashameeyada bilowgii 2000 waxaa la qaban jiray muxaadarooyin waaweyn oo culimmadeenu Sweden iyo Norway la isugu tegi jiray su'aalaha ugu waaweyn oo la iska weydiin jiray dadkii markaa waqtigaas soo galay Soomaalidu aad baa muxaadarooyinkaas loo xiiseyn jiray Sheekh Omar Sheekh Cumar Faaruq Allah yarxam Sheekh Maxamed Rashaad su'aalo waxay ahaayeen ku saabsan fiqiga oo diinta ku saabsan waxaan xalaalba maxaraanba waqtigaas waa laga soo tagay hadda la yimid 2010 iyo wixii ka sii dambeeyay su'aalihii way ka bedelmeen su'aalihii waagaas dadka yani jiilkii naga waaweyn ay qabeen oo xalaash iyo xaaraanta iyo cayr ma la qaadan kara ku saabsan su'aalihii hadda waxay taagan yihiin dhalinyartii jiritaanka ilaahay iyo tawxiidkii bay taagan yihiin marka sheekh haddaan ku maxay waxaan ka hadlayaa masaajidaan ka hadlayaa iyo culimmada hadda jirta iyo fahankooda dhalinyarada maxaa isleedahay oo halkaa khaldamay ma culimmadii baan dhalinyaradii fahmayn mise dhalinyaro ayaan la samayn booskii kala wareegtay waxaa fahamka khalday aniga fikirkayga hadday la tahay sidaad sheegtay wadaadadu wadannada reer galbeedka wadaadada Soomaalida ama wadaadada muslimiinta oo dhan markii lagu cusbaa wadanadan waxay xoogga saareen waxyaabo iska fudud oo aad u yar bay xoogga saareen marka waxay ka tageen waxyaabihii waaweynaa inay xoogga saaraan waxay xoogga saareen arrimahan markaan ka hadlayno dukaamada ma laga shaqeyn karaa waxyaabo yar yar oo iska aan muhiim ahayn ayay awoodda saareen soddonkaas oo dhan waxa laga fatwoonayo oo laga hadlayay dukaamada waa laga shaqeyn karaa iyo lagama shaqeyn karo laakiin xoogga lama saarin dhalinyartan sida loo wacyigeliyaa dhalinyartu sida ugu noolaan lahaayeen Yurub sida loo badbaadin karaa sida caqiidadooda loo dhisi karaa xoogga lama saarin taasaa keentay in maanta dhalinyaro badan ay diinta ka shakiyaan waayo markay soo weynaadeen ay 20 jir noqdeen ay qaan gaadheen dee way fikireen markay fikireen su'aalo badan bay isweydiiyeen oo ku saabsan ilaahay jiritaankiisa ama diinta islaamka su'aalihii markay isweydiiyeenna dee way ka jawaabi kari waayeen waayo aqoon fiican uma laha islaamka aqoon fiican islaamka uma laha markay yaraayeenna lagalama soo hadlin lagalama soo doodin marka waxay keentay inay qaataan wixii ay sheegayeen reer galbeedku inay run u qaataan marka tii reer galbeedka ayuunbay qaateen oo ah inaanu ilaah jirin dadkii aaminsanaadee reer galbeedka ilaah diidka ahaa ee iskuulka ugu dhigayay ilaahay ma jiro wax kasta waa okay wax dhibaataa ma leh